بسم الله الرحمن الرحيم. وابراهام براله فارح بير. ما شلay waxaan u safray 7 bishii afraad 2017 waxaan ka tagay Boosaaso. waxaan u safray dhinaca iyo Dar es Salaam to Boosaaso wadada dheer baan maray. waxaan sahaminayay dhulka miyiga ee wadanka baadiyaha dhirto iyo baadiyuhu sidoo yahay dhulkii wakaasa gobolka Mudug iyo soona markii laga leexdo laamiga wixii laga dago sidaas baa dhulkii u eg yahay dhirtiina sidaas ay u egtahay laan la goyn kara male qodax go'aysa male waxa tan xoola ka daaqaan oo ka goostaan malaha geedahaas fiiriya afkooda iyo laamahooda iyo wax xoola goosan karaan laguma arko caleen hesheeg qoyaan hesheeg hoostoodii iyo xaabkii iyo cawska dhulkii saas waka ilaahay haddii aanu mustaqbalka dambe wax keenin wadankii sidaas ka dhaba xooluhu waxay la baqtiyayaan iyo waxa looga nool yahay wakaasa xaabkii iyo wadankii xaabka lahaan jiray iyo dhirtii xaabku ka dhici jiray wadanka hawdka ah markii la dhex galo sidaas uu egyahay waxa yar yar ee dhulka ka muuqanaya waa xoolaha xaarkoodii iyo saaladoodii ma aha wax xooluhu ama cuni karaan ama ay jabsan karaan saasa dhirtii iyo dhulka alla u galay waxaan halkaas uga jeedaa inaan sahamiyo oo dhulka idin tuso iyo deegaanka iyo baadiyaha sida looga nool yahay marka wakaasa wadankii sidaas uu yahay halkaas geed yar oo qoyan oo geedaha dhexdooda ka muuqda waa markaad saacada socoto geed waxaad aan xooluhu daaqin weeye geedka qoyan hadaad aragtid wakaasa baadiyihii wakaa wadankii sidaas u yaalaa hadeed warbixinta markaan wadanka qof nin sahamiyay oo wadanka kulli hadaad tagtay wadanka warbixin inaad ka keentaa fiican wadanka miyiga ilaahay haydan barakeeye maxamed ibraahim qurba joogta iyo gobolada iyo Soomaaliya iyo dadka magaalooyinka jooga aniga laftigu magaalo joogan kamid ahayo dadkii miyiga ahaa iyo dalkii iyo hadii si looga nool yahay inaan soo sahamiyo oo warka keeno baan idinka warbixin iyo saham baan u aaday wakaasa dhulka Allah idin barakeeye inta ilaahay isbedel keenayo hadeed waxa la idinka rabaa dadaalkiina awalna ma yaran haatana waa laba jeer jibaar وكا دلكي iyo deegaankii khayr Allah idin siiyo